وإذن ما هذا علينا كسوق قلك برنامج كان شرفت له حناكم كسر وين يا وزير كأرمها دبادة الصومالية حكلون هذا علينا يا سفارة الصومالية ومحي أيضا هرمود كوي هاي سفيرك iyo shaqaalaha jooga waxa kale oo mahad celinayaa waxgaradka Soomaaliyeed oo runtii caawa si fiican waqtigooda gaaban maartay u siiyay inay soo dhaweeyaan wasiirka inta kadib wasiirku wuxuu sheegay in jaaliyadaha maxay ahayd barnaamij loo sameeyay rajaynayna insha Allah inay soo gaaraan hadda nafteed howl baa ka socda jaaliyada oo rag akhyaara oo maartay halkan fadhiya ayaa barnaamij si jaaliyada qaybaheeda kala duwan waxa looga qaban lahaa ku hool leh iyaguna waxaan rajaynaynaa in insha Allah oo Ilaahay maartay u fududeeyo inta kalena ay garab ku siiyaan insha Allah markii qoladaas timaadana ayagoo wax diyaariyay iyadoo wax la diyaariyay inay insha Allah yimaadaan hadii Ilaahay yiraahdo waxa laga yaabaa in dowladda Soomaaliya warna uma seegana jaal wasiir waxyaabo badan oo wanaag ah oo aad sameyseen oo idinku mahad celinayna waxyaabo badan oo idin dhimayeen runtii laakiin culayska hal meel baad saarteen oo ah amniga aad saarteen inkastoo amniga la'aantiisa waxba soconin haddana meelaha qaar waxa laga yaabaa in ay hoos u dhacaan marka waxaan idin leeyahay balance-iga amniga kaliya ka dhigina amniga priority-ga siiya waxa kalena insha Allah ku dhamaystira hadii Ilaahay yiraahdo 3 daqiiqo ii sheegay ninkan hada 1 daqiiqo 45 minute baan maraya waxa ii dhiman 1 daqiiqo 45 minute hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan sheeko yar ku daro soo iska daa waxa dhacday jaal wasiir gabadh baa waxay la dhalatay wiil Carabta jira marka wiil nin baa ka yimid meeshii markuu ninkii yimid bay u tagto markuu waxay sugaysay walaalka maadaama ay sii qiineen waxba kulay ku keenay doona ninkii hadiyadii waday markuu dhameystiray gabadhii waxba u muusan siin marka waxay tiri walaalo walaalkay waxba isiina doone waxba ii soo dirin warkayga ma hay dowladda Soomaaliyeed ee warkeena hayso aad baan ugu faraxsanahay حبينا وقونا درب لكن مركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته